xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee wicid ayaa maanta munaasabad ballaaran oo ku qabtay magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareed ku shaaciyay 17 xubnood oo uga qaybgali doona doorashada golayaasha deegaanka degmada Oodweyne. Munaasabadan oo ay ka soo qaybgaleen mas'uuliyiinta xisbiga wicid ee gobolka Daadmareed, xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada Somaliland iyo dadweynaha aad u tiro badan oo ku labisan astaamaha xisbiga wicid. Ugu horreynba waxaa munaasabadan ka hadlay gudoomiyaha xisbiga wicid ee gobolka Oodweyne, waxaana gudoomiyuhu sheegay in munaasabadan lagu doono xubnaha doorashooyinka golayaasha deegaanka uga qaybgali doona xisbiga wicid. Zainab Jaamac Xaashi Zainab Kacaan oo kamid ah haweenka ka sharaxan xisbiga wicid gobolka Togdheer oo iyaduna halkan hadal ka soo jeedisay ayaa dadweynaha reer Oodweyne kula dardaarantay inay iskarab taagaan musharaxyada u sharaxan golayaasha deegaanka xisbiga wicid degmada Oodweyne. xafladan aan ku soo bandhigayno xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka Daadmareed oo 17 musharax ah hadii aanu nahay anaguna musharaxad baan hay u taagan golaha deegaanka ee degmada Burco gobolka Togdheer. Ilaahay ka baryayaa aniga iyo inta halkan maanta ay ku soo bandhignayba in Ilaahay noo fududeeyo xilkan aanu qaadayno golaha deegaanka oo Ilaahay noo fududeeyo hawsha iyada ah ee aanu doonayno inaan u qabanno. idinkuna waxay u duceysaan 17kiina xildhibaan ee maanta soo darateen golahiina deegaanka in ay idinkuna wax la qabataan reer Daadmareedow iyagana Ilaahay xilka u soo wax la qabataan ayaanu doonaynaa. Waxa iyaguna munaasabadan hadal ka soo jeediyay cuqaal gudoomiyaha garabka haweenka ee gobolka Oodweyne iyo qaar ka mid ah dadweynaha reer Oodweyne, waxaana dhamaantood si isku mid ah u soo dhaweeyeen musharaxyada cusub ee u tartamaya xisbiga wicid. Xildhibaan Maxamed Faarax Qabiil oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada Somaliland ee fikirkooda ku taageeray xisbiga wicid oo gabagabadii munaasabadaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday taariikhda gobolka Oodweyne isla markaana si diiran u soo dhaweeyay 17 xubnood ee u tartamaya xisbiga wicid doorashada golayaasha deegaanka degmada Oodweyne. horta waxay xarun kamida xarumihii ay doorka weyn ka ciyaartay faafintii diinta islaamka oo ay nagu dhowdahay dariiqada xaaxee hayalkii ugu horreeyey ee ay ka wada qaaday tacliinta Somaliland oo halkan waxay nooga dugsigii boortanka ahaa عالكة هاي وصدعتها وهو يصب عتاك حسب قوعد يدور كاي كغادن يدزونا خير أودوي واسكبت أبتيا خارجيا إبابتيا ما تولد وحن كرتيري مركز ذي ولا شيء سووا لك واحد كستان. عبد الكريم محمد جامع.